الله الرحمن الرحيم كنتون أحسن العانتي بملك استوى الجبتان كسول وهذا برنامج كان وأمد قاعدة أو مرتين نوكويا يا اسمها وجود هذا ردقالك كايدس كدونت لان إباد عبد القادر محمد بربرشة هذا اسمه كسول ودونت لان تي في. قندوه هوا محسن. وقرر على موضوع بحيث الشقة قبضته هذا باك ايدس كدونت لان قبل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. hay-adan la dagaalanka AIDS-ka Puntland waxaa la aasaasay 2015 bishii 9aad waana hay-ad dooli ah mandate-keeduna waxa weeye inay hagto xiriiriso jawaab celinta heerar kala duwan ee looga hortagayo fiditaanka cudurka HIV AIDS-ka aragtida hay-adda la dagaalanka AIDS-ka Puntland waxa weeye geyiga ay ku nool yihiin dadka reer Puntland oo ka badbaadsan halista cudurka HIV AIDS-ka iyo dadka uu saameeyay oo ayagana la soo dhaweeyo loona fidiyo adeegyada heer walba leh kuwaasoo la awoodi karo. hay-adan waxay ka shaqeysaa gobolada Puntland oo dhan oo ay xafiisyo ku leedahay oo haddeer jira 5 gobol goboladaas oo kala ah Bari, Karkaar, Nugaal, Mudug, Cayn iyo Sanaag. si fiican bayna uga howlgashaa wayna ka shaqeysaa. heerka AIDS-ka Puntland uu marayo maxaan ku sifeyn karaa? heerka haddeer uu marayo maalinba horta maalinta kale uu ka duwan yahay wuuna sii badanaya faafinta cudurkan. sanadkii hore waxaan soo bandhignay markuu dhamaanay December maalintii loo dabaaldegayay maalinta AIDS-ka adduunka in dadka cudurkan la nool oo dawada qaata oo nool haddeer inay yihiin 444 dadka qaba oo ku nool Puntland ay yihiin 2815 hayeeshee haddeer wuxuu marayaa cudurka dadka qaata oo nool 476 bishii ugu dambeysay riboodkeedii dadka qaba guud ahaan Puntland oo aan dawada qaadanna waxa weeye 3891 halkaas ayaad ka garan kartaa marka cudurku maalinba maalinta ka dambeysa inuu sii badanayo oo ku sii baahayo gobolada Puntland oo dhan. dadkan xanuunka la nool tiradaas leeg oo aan dawada qaadan khatartooda iyo waxyaabaha laga fili karo. dadkan waa dadka kaliya hadda laga soo report gareeyay xarumaha public-ga oo dawladda la shaqeeya kuma jiraan kuwa bareefadada ah. tiradoodana saad aragto aad bay u badan tahay. waana dad wadankii ku dhex jira oo dadkii la macaamilaya oo gabdhihii guursanaya. tiradan badanna waxay hogaamin kartaa inuu maalinta ka dambeysa sii bato. waana dad ku jira laakiin hayeeshee hay-adda iyo hay-adaha la shaqeeyaba waxay wadaan wacyigelin dadkani say dawadii ku qaadan lahaayeen oo loo kontrooli lahaa. waxyaabaha loo aanayn karo cudurkan faafitaankiisa iyo sida ku habboon ee loo xakameyn karo sidee bay kula muuqataa ama ka hay-ad ahaan soo aragtaa? laba shay baan u kala qaadaynaa waxyaabaha hagi kara inuu cudurkani sii faafo. midi waa midda aan adduunka kala midnahay oo ah populationkan sii badanaya maalinta ka dambeysa. hayeeshee annaga waxaa dheeri noo ah 3 waxyaabood haddeer oo Puntland ahaan iyo Soomaali ahaanba cudurka faafintiisa qayb ka qaadan kara. tan koowaad waxaa weeye dadkeena Soomaaliyeed oo aan weli aqbalin inuu cudurkan jiro. qaarka og inuu jirana ayaguna kuma baraarugsana hababkii uu cudurkani ku faafiyay iyo siday uga hortagi lahaayeen. taas waa mid weeye. tan labaadna waxa weeye dhaleecaynta iyo faquuqida lagu hayo dadka la nool cudurkan oo iyadana aad ugu badan gobolada Puntland. taasna waxay sababi kartaa asaguna inay sii bato waayo dadkii goobihii caafimaadka ma tagayaan oo isma baarayaan oo waxay ka baqayaan faquuqid iyo dhaleecayn. kuwii qabay na way ku adkaanaysaa iyadana inay xarumihii tagaan oo dawadii qaataan. qaarka isaga shakisan iyo qaarkii laga helayna magaalada ayaguna gelayaan oo waxay ka baqayaan hadday is sheegaan ama dawada ayagoo doonaya la arko in ay dhaleecayn iyo faquuqid bulshadii ay kala kulmaan.
dadka qabay waxyaabo badan baa soo gaaray hadeer oo taas sababtay in qof walba dib isu dhigo xarumihii waxbarashada ciyaalkoodii waa laga soo saaraya mar haddii lagu ogaado inay qabaan goobihii ganacsiga dadkii waxba kama iibsan karaan ayagiina looma gelayo haddii lagu ogaado cudurka inay qabaan guryihii iyo meheradihii kale iyo kulli waa laga saarayaa lagamana kiraynayo dhibkaas dhan baa soo gaaraya dadkii taas ayaa sababaysa inay qof walba dib isu dhigo asoo ka baqay faquuqidaas mar haddii dadkan qabana ay la kulmaan ayaguna dhibaatadaas waxaa laga yaabaa inay cadgoosi iyo cadaawad timaado ay cudurkii laftigooda isku dayaan inay sii faafiyaan maadaama ay dhibkan kala kulmayaan bulshadii taasna waa mid kale weeye tan saddexaad oo jidha ayaduna waxaa weeye hadeer wacyigelintii oo aada u yarayd muddadii hore oo aada u yarayd oo dadkaan lagu baraarujin jirin taasna sabab bay u ahayd waddankeenu hadeer puntland ahaan dhowr xuduudood baan la leenahay meelahan uu ku badan yahay sida yaman oo kale qaxooti badan baa nooga yimaada hadeer oo cudurkii la yimaada waa waddan nagu furan weeye xagga iyo etoobiya somalilan lasoo maray iyaduna waddan nagu furan weeye xaggan kale oo iyaduna koonfur iyana waa waddan nagu furan weeye marka puntland sideedaba waxay noqotay hotspot meel ah oo cudurkii maalinta ka dambeysa uu sii badanay taas ayaa sabab u ah annaga hay-ad ahaan si aan arintan u yarayno waxaan istaraatiijiyad baan u degsanay oo 3 sano soo socota aan isticmaali doono haddii aan la idmo barnaamijyada aan qabanayno uga hortagayno waxaa ka mid ah waxaan sameynay barnaamij CEC la dhaho CCE Community Conversation Education kaasoo lagula shaqeynaya dowladaha hoose hadeer pilot project buu wuxuu yahay 4 gobol waa bari karkaar nugaal iyo mudug waxaan la shaqeynaynaa dowladaha hoose waxaan jecelnahay haddii aan la idmo in xaafadaha magaalo walba aan tababar iyo aqoon kororsi loo sameeyo haddii aan la idmo iyo baaris arrintan oo ugu daleedahay macnaha sidii wacyigelinta dadku inay ka qayb qaataan miyaa ujeedada waxaa weeye dadka in laga wacyigeliyo cudurkan la fahansiiyana qaabka looga hortagi karo iyo qaabka la isaga difaaci karo iyo qaabka qofka isu daweyn karaba intaba waa aqoon kororsi iyo wacyigelin weeye waxaan jecelnahay inaan gaarno bishiiba 360 qof oo TOT dadkaasoo dad la tababaray ah ayagana aan jecelnahay inay bulshada kale ku sii celiyaan oo sii tababaraan haddii aan la idmo waa wax socon doona insha Allah waxaan rajeynaynaa in dad badan ay ku soo bixi doonaan oo wax badan laga faa'iidi doono waxyaabaha kale oo aan qabanay iyaduna waxa kamid ah waxaan sameynay peer education wax la dhaho asagana oo dadka isku mihnadaaba aan qayb ka tababarnay sida tusaale ahaan askartoo kale qaar baan u tababarnay si ayagoo usii tababaraan oo u wacyigeliyaan darawaladoo kale saasoo kale aan u tababarnay shaahleedoo kale kuwa qaadka iibiyoo kale meelaha isleenahay risk group weeye aad iyo asaas aan u tababarnay dadkana waxay kusoo xirayaan xarumaha caafimaadka oo imaanayaan tababaro iyo waxyaabahaasna way u qabanayaan haddii aan la idmo waxyaabaha kaloo aan wadno ayaduna aan qabanay saan barnaamijkan uga hortagno waxa weeye waxaan wadna anti stigma campaign olo looga hortagayo faquuqa iyo dhalaacaynta waa asagana aan ka wadno puntland oo dhan waxaa kaloo jira asagana barnaamij ah religious leaderska qolooyinka wadaadada ayagana aan tababar u fidinay oo hadeerna aan u wadno si ay masaajidada iyo wacyigelinta kale iyo ay uga qayb qaataan maadaama ay wadaadadu saameyn badan ay leeyihiin ayaguna waxaa jira oo kale asaguna barnaamij aan u magac darnay HIV and refugees qaxootiga iyo HIV-ga maadaama dadka annaga noo yimaada hadeer puntland ahaan oo kale ah kuwa qaxootiya iyo kuwa magaaldoonka barakacayaashu waa Soomaali weeye iyagu Soomaalida ka mid yihiin laakiin kuwa ajnabiga oo qaxootiga iyo magaaldoonka ah kuwaas HIV-gu aad buu ugu badan yahay ayagana barnaamij baan u sameynay wacyigelin loogu sameynayo luuqadahooda ah xarumaha caafimaadkan lagu soo xirayo si looga hortago inay sii fidiyaan barnaamijkan laguna soconayo xaaladooda waxaa kaloo socda asaguna barnaamij aan ugu magac darnay yareynta fiditaanka HIV-ga ee xagga dhalinyarada barnaamijkan wuxuu ka shaqeynayaa goobaha waxbarashada
hadday jaamacada ahaan lahaayeen iyo hadday secondaryga ahaan lahaayeenba si loo yareeyo in cudurkani uu aada u saameeyo dhalinyarada maadaama haddeer dhaatada lahayo dadka ugu badan uu saameeyey ay tahay dadkii xoogga ahaa oo la sugayey 15 ilaa iyo 24 dadka u dhexeeya oo aada u saameeyey marka barnaamijkaasna waxaa lagu taageergareynaya isagana dhalinyarada intaasba markaan isku soo duubo iyo in kaloo ayaguna la wadwado oo hay'ado nala wadaanba waxaan rabnaa inaan uga hortagno in cudurkan uu kusii faafo Puntland aad buu goobaha ugu halista badan ama isleedahin goobahan baa tagtay goobaha ugu halista badan muddo labana wax ka dhacay cudurkan faafitaankiisa qaybta ka noqon kara Puntland laba meelood baan isleenahay halis bay tahay haddaan kala qaado magaalooyinka halista ah waxa ugu horeeya waa Boosaaso wey maadaama ay tahay iyadu meel dekada oo Yamani ku furan tahay cid walba Puntland soo gashana saldhig oo aakhirka ayada ay tagayso taasi waa hotspot bay noo tahay Boosaaso laftigeeda markaan sii kala qaadno ayadiba waxay kala leedahay halis dadka khatarta ku jira oo aan isleenahay khatar bay ugu jiraan cudurkan inuu ku dhaco ama uu haleelo waxa kamid ah dadka dekadaha ka shaqeeya oo la macaamila dadka yimaado ajnabi ha ahaadaan ama qolooyin kale ha ahaadaan dadka la macaamilo waa dadka risk groupka u naqaano khatarta ku jira waxa kaloo kamid ah darawalada gobolada kala duwan iyo dalalka isaga kala gudba sida Ethiopia Djibouti meelaha taga iyo gobolada kale oo Soomaaliya ayaguna waa dadka khatarta badan ku jira askaraha iyaguna waa ku jiraan gabdhaha qaadka iibiya kuwa shaaha iibiya kuwaas oo dhan waa dadka khatarta ku jira oo aan aad uga taxadarno aan taageer garano inta badan si ay uga badbaadaan halista cudurkan dad badan waxay qabaan bulshada qayb ka mid ah qabaan in qaadka uu qayb weyn ka qaato fiitaanka cudurkan arintaas ma inay muuqataa idinka ka hay'adaha horta qaadkan gabdhaha ka ganacsada qayb ka mid ah ganacsiga weeye ha yeeshee sababta aan riski u leenahay waxa weeye maadaama uu maandooriye yahay oo cid walba ay la falgeli karto qaab kala loo isticmaali karaa qof raba inuu fidiyo cudurkii uu isticmaali karaa qaadkii taas ayaan u niri risk group ay ku jiraa laakiin asagu gooni ahaan wax laga qaado ma aha cudurku wuxuu leeyahay siyaabo uu ku gudbo uu leeyahay laakiin qaadku ka mid ma aha siyaabo uu ku gudbay laakiin wuxuu noqon karaa wado loo mari karo inuu gudbo sidee ayaa isleedin sida ugu habboon dadka cudurka qaba iyo dadka kale cadaawadooda loo yareyn karo dadkii bulshadii caafimaadka qabta waxay takoorayaan kuwii xanuunka qabay kuwii xanuunka qabana waxaa dhici karta inay argoosi markaa la yimaadaan hay'adahan see ugu muuqataa loo yareyn karaa cadaawadda dhex mari ka dhaca qolada xanuunka la nool iyo qolada kale fuquuq ay ka imanayso dadka aan xanuunka qabin su'aal fiican weeye barnaamijyadan aan wadno waxa ka mid ah anti stigma campaign barnaamij looga hortagayo faquuqa iyo dhaleecaynta cudurkan HIV-ga waxaa jira cudurro badan oo ka halis badan baa jira waxyaabaha uu ku faafana asagu waa wax kooban weeye oo la iska ilaalin karo cudurkan sidiisaba laguma kala qaado guri lagu wada nool yahay suuli la wada isticmaalayo cunno la wada cunayo macaamilka guryaha iyo xaafadaha iyo waxyaabaha dhan laguma kala qaado qofku waa la ganacsan karaa waa la noolaan karaa waxbaad la cuni karaa waa la macaamili karaa kuma qaadaysid dadkii baan fahansanayn sababtaas ayaa keeni karaa dadkan ayaguna cudurka qaba inta badan qofku markuu isoo bandhigo dawadii buu qaataa viral loadkiisuna aad buu u yaraanayaa markaa dawadu markuu qaato marka waxyaabaha talooyinka la siiyo waxaa ka mid ah qaabku uga hortagi lahaa cudurkan inuu gaaro dadka kale oo u fido oo asagoon ugu ekaan lahaa hadduu xaas leeyahay iyo waxyaabahaas marka aqoon la-aantu baa keenaysa in dadkii ay xoogaa phobia kala qaadaan kan qabay iyo kan aan qabin laakiin kan aan qabin oo kale waxa weeye
waxyaabaha siyaabo badan oo fudud buu ugu soo gudbi karaa haddaanu feejignaan samayn marka inta badanna cadaawaddu dadka aan xanuunka qabin ayaa la sheegaa inay faquuqaan dadka oo qofka xanuunka qabay maaragtay in dhibaato loo geysto oo gurigii laga kareen waayo qaar badan oo cabanayo gurigii laga kareen waayo oo hay-addu waxaa dhici ka dhida inaad ka warqabtaan marka ma la oran karaa faafitaanka cudurka dadka aan cudurka la noolayn qeyb bay ka yihiin maadaama ay takoorayaan bulshadii cudurka la noolayd koridda waa ka midba waxyaabaha sii faafinaya aqoon la-aantaana keenaysa dadku hadday ogaan lahaayeen ama baran lahaayeen haddaba si kuwa badan ay ugu waana qaateen oo ficilladii ay samayn jireen ugu waantoomeen waxyaaba badan baa iska bedeli lahaa waayo waxa uu ku faafaba waa wax kooban weeye ma aha wax walbo lala macaamilo qofka qaba inuu cudurka ku faafayo daawadayaal intiina nagagu soo biirtay intaa barnaamijka ku jiray barnaamijka waa barnaamij gaara waxaana marti noogu ah agaasimaha guud ee hay-adda la dagaalanka aidiska puntland cabdulqaadir maxamed burburshe qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku jiraa agaasime muddo sanada ayaa xafiiskan aada joogtay isbedel weynna wuu ka muuqdaa sida aanu hadda aragno xafiiska waxyaabihii ugu waaweynaa ee xafiiska muddadii sanadkayd aad joogtay maxaad noogu soo koobi kartaa muddadii sanadka ahayd aan joognay waxyaabaha ugu waaweyn oo noo qarsoomay waxaa ka mid ahaa inaan isku xir u sameynay hay-adda iyo deeqbixiyaasha saboodgareeya programkan annagoo safaro dhowra u galnay oo dalka dibadiisa si aan barnaamijkan uga soo dhaadhicin lahayn hay-adaha saboodgareeya barnaamijkan ilaahay mahadiina waa ku guuleysanay madmadow uu jiray waan soo dhamaystirnay waxa aan qabanayna iyo qorshaha igu hoyahana waa u bandhignay in badan oo ka midana haddeer way nala shaqeeyaan kuwa kalena waddaday kusoo jiraan taasi waa guul weeye waa noo qarsoontay tan kaloo aan qabanayna waxaa ka mid a waxaan dhisnay dalladda dadka la nool cudurka HIV aidiska dalladaas waxay u qareynaysaa lana shaqeynaysaa dadka la nool cudurka HIV-ga way aruurinaysaa way ka warqabaysaa qareen badan bay u sameynaysaa waxay ku xiraysaa xarumaha caafimaadka taana waa guul weeye horay waxu jiray maaha waxaan kaloo ayadana dhamaystirnay siyaasadda HIV aidiska oo loonjigeedu uu diman yahay haddeer haddii alayno waxaan daadejinay shaqadii hay-adda oo ilaa heer gobol aan gaarsiinay oo awal aan ka shaqayn jirin oo 5tii gobol oo aan horay u xursay ay haddeer ka shaqayso barnaamijyadaas dhan waa waxyaabaha noodgalsi oo waaweyn oo aan ku faanay puntland aad waxaa sheegtay 5 gobol oo kale xarumo waaweyn ay hay-addu ka yaabaan xarumahaas goboladaas waxaa jira gobollo fogfog buyortisiska ay niin leedahay gobollada fogfog ama xarumahaas meeqa ayaa ku yaala laamiga ka degsan 5 ah hab maamulkii weeye waxa aan gobolada u leeyahay xafiisyadii maamulka weeye laakiin meel walbo goob caafimaad ku taalo programka HIV waa ka shaqeeya hadday fog tahay iyo hadday dowdahayba kullina daatada waa laga helaa barnaamijka waa ka shaqeeya laakiin 5tan gobol aan kuu sheegayo waa hab maamulkii keliya laakiin xarun walba oo caafimaad wasaaradda caafimaadka aan garayso programka HIV-guna waa ka shaqeeya daatadana waa laga helaa daawadayaal weli waxaan ku guda jiraa barnaamijkii uu martideena ku ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka aidiska puntland cabdulqaadir maxamed burburshe qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaaray mudan agaasime hay-adda la dagaalanka puntland ee u qaabilsan aidiska ee back qorshayaasheeda haddii aad xun nooga xusto maxaa inay qorshaysan sanadada soo socda qorshayaasha ugu muhiimsan waxaa weeye strategic planka ku jira siyaasaddan HIV aidiska oo haddeer aan dhamaystirnay ayadaa sidii loo howlgelin lahaa oo shaqeyn lahayd puntland ahaan puntland oo dhan waayo waxyaabo badan baa haddeer u xaniman siyaasaddan dad baa jira puntland u yimaada inay cudurkan faafiyaan oo kiisas badan oo haddeer aad aragteen ama aad maqasheen ama kuwa haddeer lagu hoos jiro baa jira waxaa ka mid ah dad waqooyiga nooga yimaada oo gabdho ah
oo u yimaada puntland si u faafin lahaayeen cudurkaas. laba kiis oo hore waa jireen oo ka dhacay Garowe. haddeerna waxaa jira kiis ka dhacay magaalada Boosaaso oo gabadhi ay inta timid Boosaaso marba hotel degaysay iyadoo isku cudurkii aakhirkiina aan qabanay oo aan wacyigelinay oo haddeer dawadii qaadanayso baa jira. marka dadka cadowtinimada u isticmaalay inay cudurkan faafaan waxaan jecelnahay siyaasaddaas ayaa qaban doonta. iyadana waxaan jecelnahay inaan howlgelino insha allah sanadkan gudihiisaba. waxyaabaha kaloo noo qorshaysan oo aan rabnay inaan qabanno waxa weeye maadaama wadaadada iyo diintu ay influence ku leedahay bulshada, saameyn badan ay ku leedahay, iyadana waxaan jecelnahay inaan la shaqeyno wadaadada. tababaro badan baa usoo socda haddeer oo loo qaban doono dalka iyo dibaddaba, waa lala shaqeyn doonaa insha allah. wacyigelinta kahortaga iyo ololaha kahortaga faquuqa iyo ballaaceentuna isaguna waa sii socon doonaa haddii alla idmo. waxay hay-addu jecesha iyaduna sanadada soo socda inay 9 gobol oo Puntland xafiisyadeeda iyadana ku fidiso haddii alla idmo insha allah. agaasime xeerkan oo kale aad soo saaraysaan qofka sidaa oo kale faafinaya oo cadowtinimada u isticmaalaya isagoo xanuunkii og dadka ku faafinaya oo kale wuu xukumaya ama taqsiir buu u samaynayaa miyaa mise miyuunu jirin sharci qabanaya qofka noocaas oo kale lagu qaban karo? waa shuruucda bay ka mid tahay siyaasaddu muxabaasan tahay. qofkaas waa dambiile, qodobka siyaasadda wuxuu ka qabaana lagu qaadi doonaa haddii alla idmo. ugu dambeyntii talooyinka aada u soo jeedinayso bulshada Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed ee ka daawanaya TV-ga Puntland maxaad adigoo soo koobaya aad oran lahayd? dadka reer Puntland iyo Soomaali weynba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo oo u sheego in cudurka HIV/AIDS uu ka jiro Soomaaliya oo maalinba maalinta ka dambeysa uu sii badanayo. qof maanta isdhihi kara HIV ma qabti ma jiro ilaa uu isbaaro mooye. markuu isbaaro oo la dhaho negative baa tahay markaa ayuu oran karaa ma qabo. laakiin qofka kale shaki unbaa ku jiraya inuu qabo iyo in kale. marka waxaan ugu baaqi lahaa bulshada reer Puntland iyo Soomaalidaba inay goobaha caafimaadka tagaan oo isbaaraan, taasoo laba faa'iido ay ku jiro. tan koowaad waxaa weeye hadduu isbaaro oo laga helo cudurkii wuxuu helayaa dawadii uu qaadan lahaa oo bilaasha, taasoo qofka uu ku noolaan karo inta cimrigiis ka dhiman intuu ilaahay u garto. dadkaas ayuu la mid yahay hadduu joogto dawadiis u qaato. faa'iida kaloo ku jira waxaa weeye qofkii wuxuu helayaa aqoon kororsi si cudurkan ugu hortegi lahaa ah. labada faa'iidaba way ku jiraan. waxaan kaloo rabay inaan ku dhiirigeliyo oo ku booriyo lamaanayaasha jecel inay isguursadaan inay isbaaraan marka hore isguursanay guurka ka hor inay isbaaraan. waxaan kaloo ku boorin lahaa wadaadada meherka sameeya iyaguna dadka u imaanayo oo isguursanayo ee raba in la isku meheriyo inay kula taliyaan inay isi soo baaraan. taas wax badan ayay taraysaa oo bulshada ay ka badbaadinaysaa haddii alla idmo. agaasime siyaabaha cudurkan ama calaamadaha lagu garan karo ama siyaabaha uu ku faafi karo maxaad ka sheegi kartaa? cudurkan siyaabo kooban buu ku faafaa. waxaa ka mid ah waana 4 siyaabood ka badan. waxaa ka mid ah kow galmo aan badbaadsanayn ama xaaraan ha ahaato ama xalaal ha ahaatee qof qaba iyo qof aan qabin ay isugu tageen waa kow. kan labaadna waxaa weeye dhiig viruska contaminated ku sameeyey oo virusku ku jiro oo qof qaba laga soo shubay oo qof aan qabin lagu shubay oo labo. tan saddexaadna waxaa weeye qalabka waxgooya oo loo isticmaalay qof qaba kabacdina loo isticmaalay qof aan qabin. iyadana waa gudbi karaan qalabkaas ay ka mid yihiin sakiimaha, irbadaha, waxyaabaha wax lagu talo, kuwa qallimada, waxyaabahaas. tan afaraadna waxaa weeye hooyada oo cunugeeda ugu gudbin kartaa 3 marxaladood: xilliga uurka, xilliga dhalmada iyo naasnuujinta.
intaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha uu ku faafi karo oo ku gudbi karo cudurka. guud ahaan barnaamijkii gaarka ah oo martidayna ku ahaa agaasimaha guud ee hay-adda la dagaalanka puntland u qaabisa aidiska ee baak cabdulqaadir axmed burbushe intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigu ah maxamed saciid qoslaaye intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.